السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha muxsiniinta ee ku xiran youtube-kayga almuxsiniin iyo page-kayga almuxsiniin maanta waxaan idinla jeclaystay inaan idin soo gudbiyo muuqaal ay ii soo dirtay gabar walaasheena ah oo ku nool magaalada muqdisho. walaalaha muxsiniinta ee jecel inay la baxaan sadaqada, walaalaha muxsiniinta ee jecel inay ahalkooda ama aqribaagooda ama walaalahooda ama caruurtooda ay ku daaweeyaan sadaqada, walaalaha jecel inay sadaqada la baxaan si uu ilaahay ugu raali noqdo, walaalaha jecel inay waalidkooda wax u sadaqeeyaan, walaalaha jecel inay rumeeyaan ama ay fuliyaan xadiiskii ahaa suubanaheen salawaatullaahi caleyhi wasalaam, qofkii agoonta u gargaara jannada isku qaabkan ayaan usoo baxaynaa uu ishaaray. walaalaha jecel inay walaalaha muslimiinta ah inay garab istaagaan. muuqaalkan haddaba waa muuqaal hooyo haysata caruur agoon ah, isugu jira wiilal iyo gabdho. waxay la nooshahay sidoo kale hooyadeed oo camoolo ah oo curyaan ah oo aan waxba u awoodin, uma shaqayso, dhaqli kale ee meel kale kasoo galana ma jirto. walaalaheeda muslimiinta ah ee muxsiniinta ayaa waxay ka codsanaysaa inay gargaar la soo gaaraan. waxaan ugu soo foolay bishii barakeysaneed ee ramadaan. waa bisha keliya ee aan u baahannahay inaan isgarab istaagno, walaalaheenana aan garab istaagno, duruufaha iyo dhibaatada haysana aan u kaalmayno. marka walaasheena nambarkeeda iyo duruufteeda ayay noo sheegan doontaa. nambarkeeda halkaas ayuu ku qoran yahay. qof kastana wuxuu awoodo halkaas hagu diro. waxaad maanta baxsatid berita ayay ku anfacayaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة حسن علي ilmaha agoon markaan haystaa habarteedu waa yeelan ku korsaaranay aqoon kansaraanada dilay subcaankaanaas dhintay kaas waxa uu mala anaga ku amalnay ilmaha u haysta habarteedan korsaaranay waa kaas waa yeesha way ka soo laxaad موبايل نمبركاga موبايلkeena markay fura 3 waay 29 15 10 fura 3 29 15 10 يا احنا عادين